waxaa guriga ku soo haray isaga iyo xaaskiisa, waxayna ahayd habeenkii koowaad ee arooskooda. Markii ay damceen in ay casheeyaan, ayaa albaabka xoog loo soo garaacay. Albaabkii ayaa la sii garaacay. Ninkii guriga iska lahaa waxa uu soo baxay bannaanka si uu u fiirsho qofka albaabka soo garaacayo. Haddii uu fiirshaba waa nin tuugsanayo. Wuu xanaaqay, aad iyo aad ayuu u qayliyey, isaga oo canaananayo oo dhahayo, xilli albaabka la soo garaaco ma taqaaniin, waa iska tuugsanaysiin, idinkama seexan karo, waxa cuntiin ma raadinaysiin, iimaankaa la adiin, nooga dhaqaaq albaabkanaga horteena ha soo istaagin. Ninkii masaakiinka ah ee tuugsanaya isaga oo naxsan oo wax uu ku hadlo karan la ayuu meeshii isaga cararay. Kadibna ninkii hawshiisii iyo gurigiisii ayuu iska sii ku noqday. In muddo ah markii uu ka soo wareegtay ayaa ninkii arooska ahaa musallifay, dhaqaalihii ay ka baaba'een, wax uu reerka ku biishana waa uu waayey, waana uu iska furay xaaskii uu guursaday. Markii muddo ay gabadhii garoobaynaysay oo sanooyin ay ka soo wareegtay, ayay waagii dambe waxa ay guursatay nin kale. Markii sidii oo la mid ah habeenkii arooskoodii ayaa waxaa la soo garaacay albaabka. Haddii la soo garaacay wuxuu yiraahday, waa kuma waxa albaabka soo garaacayo. Waxa uu jawaabay, waa qof sadaqa doonayo. Xaaskii ayuu yiraahday, cashadan u qaad oo u geey masaakiinka ha ducay caawi. Cashadii markii la soo qaaday ay albaabkii furtay ay u imaatay masaakiinkii, waaba ninkii ay kala tageen. Aad iyo aad ayay u naxday. Cashadii ay siisay ayadoo ilmeynaysa murugaysan ayay waxa ay ku noqotay guriga. Waxa ay ku tiraaday ninka iligta taagan waa ninka hadda ka hor aan wada joognay oo aan kala tagnay. Waxaana dhacday saan oo kale habeenkii arooskeena ahaa, nin masaakiina ayaa irida soo istaagay. Aad iyo aad ayuu u qayliyey, wuuna canaantay. Ninkii ayaa ilintii ka tiray asagana soo murugaysan. Wuxuu yiraahday, qofka habeenkaas guriga idiin soo garaacay aniga ayuu ahaa. Aad iyo aad ayay iga jajabneed, asagana canaan fiican ayuu canaantay, ma ilaawin. Laakiin anaga waanu ka ducaysanaynaa si uu reerkeena noogu sii dhisnaado. Marka dhageysto, adigu sidee bay kula tahay sheekadan? Maxaanan ka faa'iideynaa? Waxaynu ka faa'iideynaa sheekada waxay tahay qofka haddii uu sadaqada la baxo waxay u noqonaysaa xirsixir. Ilaahay maalkiisa ayuu ugu barakaynayaa, reerkiisana waa ugu barakaynayaa. Qofka masaakiinka ahna haddii aadan waxba u awoodin oo waxba aadan u haynin, waxa ku filan hadal wanaagsan. Kalimatu dayiba sadaqa, waa hadalka wanaagsan waa sadaqo. Adigu wax ku dhimayso hadalkaas wanaagsan, asagana waxay u noqonaysaa naxariis. Asaga oo niyad faraxsan ayuuna ka tagayaa. Haddii aad wax awoodidna ugu dar oo wax sii, oo marnaba qofkii masaakiinka ahaa albaabkaaga soo istaagay wax la'aan ha dhigin.